halkani waa EBC News. Daawayal ku soo dhawaada warka maanta. Taariikhdu waa 11 bisha June 2025. Waa maalin Arbaca. Qodobada wararka Soomaalidana waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo ka hadlay odayaashii ka soo jeeday magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed ee ku xidhnaa Gaalkacyo iyo odayaasha xidhan oo iyagu qudhoodu hadlay. waa tahay daawadayaal qodobkaas ayaanu ku faaqidi doonaa warkeenna maanta. daawasho wanaagsan. gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland ayaa ka hadlay isla markaana ka jawaabay hadal ka soo yeedhay odayaal ka soo jeeda magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed, isla markaana ka hadlayay odayaashaasi odayaal kale oo ku xidhan magaalada Gaalkacyo oo loo haysto aano dil, iyadoo ay odayaashaasi lagu baahiyay social media maalmihii la soo dhaafay iyaga oo silsilada ku xidhan, isla markaana la muujiyay in si xun ay u xidhan yihiin oo ay dhibaataysan yihiin. haddaba gudoomiyaha isagoo ka hadlaya arrintaasi waxa uu yidhi sidan: social media maanta haystay Baydhabo niman reer Baydhabo wada hadlayay, waxaan rabaa inaan ka hadlo dadkana ka jahil bixiyo. nimayow social media maanta haystay Baydhabo niman reer Baydhabo wada hadlayay, waxaan rabaa inaan ka hadlo dadkana ka jahil bixiyo. nimayow 19 sano ka hor bay nin dileen. 19 sano waxaa laga soo saari lahaa ninka magtiis. maalin ayaan dhaweeyay 7 bilood ka soo wareegtay baayaga nin laga dilay. ninkii laga dilay waa loo soo qabtay, waa loo keenay qisaastaa la yiri gobonimada Gaalkacyo taala idin sheegaya nimanka reer Baydhabo ninkii baa loo keenay. ninka dilay waxaa la yiri waa loo yeeray aabihiisa yimid qisaastaa la yiri. qisaas ma rabeed waxaan rabaa buu yiri diyo aan ku bedeshay. diyadii waa loo aruuriyay, waa diyaar. anaga maamulka ninkii baan soo qabanay, waa keenay, odaygii baan u yeeray, waxaan niri diyo hadduu rabo diyadiisii muddo qabsada. muddadii ay qabsadeen baa diyadii loogu ururiyay. 19 sano ayagu ninkay dileen maamulkooda ma soo qaban oo nama horkeenin oo kaala qisaasta ma oranin oo magtii ma ay bixinin oo ma soo ururin. 19 sano waa 19 ilaahay baan kugu dhaarshay wax gar ahaa. ninkay intay direen bay waxay u direen Yaman bay u direen. marka nimankii reerkooda halkan joogay iyo nimankii magta ku lahaa 19 sano baa intay wada hadleen waxay dheen magtayadina siiya. waxay qabsadeen muddo nootaayay tageen. nootaayadii markii la geeyay heshiiska loo galay maxkamadda laga tasdiiqiyay. maxkamaddii muddadii markay dhamaatay u yeertay waxay tiri magtii keena. ma garatay salli ku hayn baa maxkamadda u jirtay maaqan 5 beri waxay tahay. nimankii la soo qabqabtay iftiraar lahay noogu daray. waxaan ku yiraahdaa nimankaasi dhaqaaleeya waxba ha dhibaataynina, jeel hoose ha gelinina, mag baa laga rabaa, bareerahoodii ha la hadleen oo telefoonadooda siiya. silsiladda intay soo qaateen oo dhaadadka isaga xireen si ay reerahooda ugu beerdilcsadaan. WhatsApp-yada reerahooda ku direen waxay yiraahdeen waxaan xirannahay beerdilcsi baa iyagu uga jeedeen. waxay lahaayeen magta ha la soo fududeeyo. reerahoodii xagga kale intay u rogeen bay siyaasad ka dhigeen oo waxay geliyeen bayjaj iyo social media la dhigay. ninkii magta laga sugayay oo 19 sano wax ku maqaayeen oo maamulkiisa uu waxba ka qabanin, asagana magti diyaar u tahay oo ninkii loo keenay qisaasta ah haddii xagga kale u rogo. horta meeshii cir laga sugayay baa Ceeryaamo ka timid. meeshii cir laga sugayay baa Ceeryaamo ka timid. nimankaasi silsilad kuma xirro anaga cadaynayna. waarankii maxkamadda anaga hayna, laakiin raaliga kama nin qof reer Koonfur Galbeed ayaga raali ka ah in la xiro. waa ku soo wadeeshiyeen qabiilka waxay yiraahdeen si kale wax ku imaan mayaan hana la xiro. bal fiirsada waxaasi wax dadka qabta ma anaga sii deynayna oo hadda sii deynayna, laakiin magta inay keenaan baa la rabaa. dhinaca kale odayaashii raanweyn ee ku xidhnaa magaalada Gaalkacyo ayaa iyagii hadlay, waxayna sheegeen in aan wax taacadiya loo geysan silsiladahana aanay dawladdu shaqo ku lahayn ee ay iyagu isku xidhaan si markaasi dadkoodu ay u dhiiradaan oo ay lacagta uga bixiyaan. hadalladoodina waxaa ka mid ahaa sidan: aad looga hadlayo silsiladaas waa waxana aan sameynay dhalinyarta lagu xiriiray. aan naftayda markii lagu xiray hataa waa jiifay. marka barnaamijka loo sameeyay social media hataa lama dhigin, group intaarta la dhigay. hada silsiladana wax maamulka shughul ku lahaa oo hataa wax ka ogeey ma ahayn. taliisal wax kama ogeyn, askari kale wax kama ogeyn. waa dhalinyartaas sameysay. dhalinyartana waxa uu sameeyeen si meesha hawsha noogu fududaato oo tolku u gaaro inna haysto oo la ogaado darteeda loo sameeyay.